kulan wuxuu ahaa lagu lafaguray aayaha iyo mustaqbalka Soomaaliyeed iyo siday dhalinyarada qayb kaga noqon karaan dhisidda dawladnimada oo aan dhalinyaradii laga weeciyo dhisidda ashqaasta iyo shakhsiyada inay noqdaan dad dhisa dawladnimada dhisa ee aan noqon dad dhisa muxuu ahaa ashqaasta dhisa aysan noqonin kulan wuxuu ahaa lagu lafaguray inaanan mar kastaba ka hadlin maxaan ka rabnaa dawladda maxaan ka rabnaa dalka la yiraahdo dalka anaga muxuu naga rabaa dawladda anaga maxay naga rabtaa waxaan diyaar u nahay runtii inaan dalkeena horumarino madaxda iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeedna inaan ku garab istaagno shaqada qaran ee dalku u hayaan waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada qaranka oo runtii xildhibaan Cabdi Xasan iyo xildhibaan Siraaji iyo xildhibaan Xani oo maanta ayagoo tiim dhalinyaro ah garteen inay dhalinyarada Soomaaliyeed hor fadhiistaan dhaxan maxaa wadankan lagu sixi karaa waa meesha ugu muhiimsan runtii dhalinyarada la weydiyo fikradahooda kala duwan maanta ay soo bandhigaan waan u mahadcelinayaa waana guul runtii ay gaareen ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada baarlamaanka ku jiro iyo dhalinyarada Soomaaliyeed inay maanta muddo 5 saacadood ay ku falanqeeyaan sidii dalkan xalkiisa lagu heli lahaa waxaan go'aansanay shirkan iyo meetingkan awada inuu noqdo meetingkii bilowga ahaa oo aan dib u kulmi doono aan ka shaqeyn doono maxaa la jiray qaabkii la isku xiri lahaa dhalinyarada iyo xildhibaanada maxaa la jiray ayagana dhalinyarada baarlamaanka ku jiro iyo dawladda iyo qaabkay u wada shaqeyn lahaayeen maxaa la jiray dawladda iyo dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan marka waxaan rajeynayaa in awada uu noqdo shirkii awada uu noqdo midkii foundationka u noqon lahaa isbedelada badan aan rabno insha Allah inaan wadankan ka soo bixino kaloo kamid ah shaqo abuurka lacagaha faraha badan ee baarlamaanka la horkeenay ee guddiga wasaaradda maaliyadda ay horkeentay inay ku xiraan qaabka ugu muhiimsan ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo number badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay shaqo abuur loogu sameyn lahaa waxyaabaha kalonto aan ka wada hadalnay waxa kamid ah inay baaraan naftirkoodu xadgudubyada dhalinyarada Soomaaliyeed loo geysanayo iyo kuwa ay geysanayaan oo xabsiyada ku jiro guud ahaan wadanku ay tagaan dhalinyaradu ay la fariistaan la tashiyo la sameeyaan maadaama ay yihiin dhalinyaro meesha fadhisa qabiilay ka yimaadeen xildhibaanada laakiin qabiilada ay ka yimaadeen maanta waxay ku matalaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto baahiyaheena u gudbinay caqabadihiin wada qaadanay runtii si wanaagsan ay u garaawsadeen waxa meesha ka dhacay